howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidanka beesha ciise ayaa goordhow lagu soo qabtay laba oday dhaqameed oo la sheegay inay ku dhuumanayeen magaalada Lughaye waa raggii la sheegay inay maamulayeen rag la sheegay inay dad rayida ka gubeen guryo wararkii ugu dambeeyay sidoo howlgalku u dhacay bilow ilaa dhamaad ayaan faahfaahin kaaga hayaa qodobada kale ee xasaasiga ah oo aan ku soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona diyaaradaha dalka Djibouti oo xilligan aan kula hadlayo dul taagan deegaanada dhowr ah ama magaalooyinka Lughaye iyo Lowyacade oo la sheegay in hub loo soo mariyay beesha Samaroon iyana faahfaahinta ayaan kaaga soo gudbin doona waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa macluumaadka wararkii ugu dambeeyay garaadada maamulka waqooyi bari oo intooda badan iskaga baxay magaalada Laascaano hadaba Laascaano ma amni darro ayaa ka jira waan ku soo gudbin doonaa waxaan kula wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda taageersan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhaleecaymo weyn ka soo jeediyay gurigii la sheegay in loo dhisay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii tahay markii kugu horeysayna nagu soo biir oo subscribe daraja media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga inoogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa diyaaradaha dagaalka Djibouti ayaa xilligan aan kula hadlayo waxa ay dul taagan yihiin magaalo xeebeedyada kala ah Lowyacade iyo Lughaye oo ka tirsan gobolka Awdal labadaasi magaalo maalmihii la soo dhaafay hub tira beel ah ayaa dhanka badda looga soo geliyay beesha Samaroon taasoo keentay in Djibouti ay ku hanjabto in ay beegsan doonto oo ay duqeyn doonto haddii ay ka shakiyaan doomaha la leeyahay waxay hub u wadaan beesha Samaroon labada diyaaradood oo ah kuwa jooga hoose ku duulaya isla markaana helicopter ah meel walbana ku dildegi kara ayaa la soo warinayaa in ay guux dheeraya ku socdaan iyaga oo 3 jeer ka badan dul yimid xeebaha magaalada Lowyacade iyo Lughaye ciidanka Somaliland gaar ahaan kuwa badda ayaa damcay inay rasaasiyaan laakiin waa ay la gaari waayeen oo diyaaradahan hawada sare ay u duuleen odayaal kamida odayaasha dhaqanka beesha Ciise waxay sheegeen inay aad ugu farxeen in hadda beesha Samaroon lagu hor istaago inay hub ka hesho dhinaca xeebaha taasoo dabcan dad badan ay aaminsan yihiin inay tahay ficil aan wanaagsaneyn oo ay ku kacayaan beesha Samaroon Samaroonka maalmihii la soo dhaafay hub fara badan ayay ka heleen dhanka badda gaar ahaan magaalooyinka Lowyacade iyo Lughaye waxaana wararka iyo macluumaadka aan helayna ay sheegayaan in tani ay tahay fariin inaba aan caadi ahayn oo loo diray beesha Ciise oo ku aadan in beesha faca weyn Ciise aysan hor istaagi karin ayaa la yiri caqabadna aysan ku noqon karin in markaasi beeshu ay hub ka hesho dhinacaas iyo magaalada Lowyacade iyo Lughaye diyaaradaha Djibouti dabcan hadda ma fulinayaan duqeymo laakiin haddii ay noqoto inta ay diyaaradaha Djibouti halkaas ku sugan yihiin inay hub helaan beesha Samaroon dabcan tan waxay ka dhigan tahay warkii maalmihii la soo dhaafay ku jiray baraha bulshada kaasi oo sax noqday oo ahaa in beesha Samaroon ay xuduudda hub ka helayso gaar ahaan dhinaca Berbera oo hub fara badan oo waliba ay helayso Djibouti dabcan haday aragto diyaaradahaasi ama haday diyaaradahaasi arkaan iyagoo hub laga dejinayo doonyaha dheereeya dabcan waxaan u maleynayaa inay fulin karaan waxa u eg duqeymo ama dabcan rasaas xoogan inay halkaas ku furi doonaan raggaasi ama ay nolosha ku qaban doonaan hubkana ay furan doonaan waana tallaabo ciidan oo la leeyahay Djibouti waxa ay doonaysaa in ay ku xakamayso wax walbo alleelahay leeyahay xaaladda way uga sii dari karaan khubarada dhanka amniga qaarkood oo aan goordhow la hadlay waxay ii sheegeen in tan ay ka dhigan tahay in hadda xaaladdu ay gaartay meel aad u sareysa iyadoo laga cabsi qabo in xaaladdu isbedesho jawigu uu noqdo si kale taasi oo dabcan loo arko mid caqabad ah isla markaana xaaladda gelinaysa jahwareer siyaasadeed oo kale warar iyo macluumaadyo aan helayno ayaa waxay tilmaamayaan in beesha Ciise ay Djibouti ku wargelisay in hub tira beel ah ay bilihii la soo dhaafay heleen beesha Samaroon Djiboutiyaankuna taas ay ka caroodeen isla markaana dabcan ay diyaaradaha kiciyeen diyaaradahaasoo la sheegay ugu dambeyn in ay sahleen in lagu hor istaago beesha Samaroon inay hub hesho anigu toddobaad ka hor ayaan dabcan daawadayaal idin sheegay inay jiri karto suurtagalnimada ah in beesha Samaroon ay hub badan ka heshay meelo kamida gobolka waa gobolka Awdal gaar ahaan
aagga aan lehe magaalada berberaan hub ay ka heleen taasoo dabcan ku tusinaysa in xaajadu ay isbedeshay oo xaaladdu ay tagtay meel aan waxba laga qaban karin saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka beesha ciisuhu waxay tilmaameen in ay walaac iyo walbahaar ku tahay beesha ciise hubkan somalilan ay siinayso beesha samaroon iyadoo jabuutina hadda laga codsaday inay dagaalka toos u soo galaan oo ay dabcan ku soo biiraan shakhsiyaadka hubka siinaya beesha ciise dhinaca kalena ciidanka beesha ciise ayaa goordhow gacanta waxay ku dhigeen 2 oday dhaqameed oo la sheegay in ay ahaayeen odayaal dhaqameed ka soo jeeda beesha samaroon kuwaas oo lagu eedeeyey ku lug lahaanshaha ciidamo la sheegay inay gubeen guryo ay deganaayeen dad rayid ah oo ku yaala aagga magaalada Lowyacadde iyo Lugahaye warbixintii tan ka horeysay ayaan daawadayaal idinkugu sheegay in boqolaal guri la gubay oo dab la qabadsiiyey guryahaas oo la sheegay inay leeyihiin beelweynta ciise waxaana arrinkaasi si weyn uga carooday beesha ciise oo sheegtay in aysan aqbali doonin dagaalna arrinkaasi ay ka xigto xaaladdu iyadoo halka ay joogto ayaa ciidanka beesha ciise oo aad uga careysan ficiladaasi waxay fuliyeen howlgallo qorqorshaysan oo intooda badan ka dhacay Lowyacadde iyo Lugahaye waxaana xogta aan helayna ay tilmaamaysaa in dhammaan howlgalladii halkaasi laga fuliyey lagu soo qabtay 2 oday dhaqameed oo la sheegay inay ku lug leeyihiin ficilo ka dhacay Lugahaye iyo Lowyacadde 2 oday dhaqameed ee gacanta lagu dhigay ayaa hadda la soo warinaya in maxkamad la geyn doono si sharciga loo waafajiyo isla markaana lagu ciqaabo in ay ka dambeeyeen iyagu ficilada halkaasi ka dhacay beesha ciise si weyn ayay dabcan uga carootay ficiladii ay sameeyeen ciidanka Somaliland iyo kuwa gudubirsi waxaana hadda la leeyahay waxa dhici karta tallaabooyin kale in la qaado taasi oo dabcan xaaladda uga sii dari karta haddii aanan la bixin xal degdeg ah ama gacan saddexaad oo arrinkan si degdeg ah xaaladda u soo afjarta saraakiil sarsare oo ka tirsan Somaliland laftirkooda waxaa lagu eedeynayaa inay dhinaca beesha samaroon ay xigaan oo aysan daacad ka ahayn sidii loo soo gabagabeyn lahaa dirirta u dhaxaysa ciisaha iyo samaroonka waliba ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa dhawaan wuxuu sheegay in ay si weyn uga naxeen sida beesha reer Sheekh Isxaaq si hagaar la'aaneed ah ay ugu hagar baxayso beesha samaroon isagoo sheegay in aysan u dulqaadan doonin ficiladaasi oo uu ku sheegay inay ka hor imaanayaan wada dhalashada iyo walaaltinimada haddii uu sheegay la isku dayo in la carqaladeeyo nabadda iyo xasiloonida ay ku naaloonayaan beesha ciise tallaabooyin kale ayaanu qaadaynaa odayaasha hadda aan gacanta ku haynana waxay noqon doonaan kuwa la maxkamadeeyo ayuu yiri ugaaska guud ee beesha ciise dabcan xaaladda hadda markaad eegtid samaroonka iyo ciisaha waxay xaaladdu hadda maraysaa meel aad u sarreysa waxaana laga cabsi qabaa in ay jawgu uu isku bedelo xaalad kale iyada oo macluumaadka iyo wararka la helayana ay sheegayaan in 22 saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay carqaladeyn ku saabsan xasilooni darro laga cabsi qabo in ay dhinacyadu gooda istaraan qodobkeena ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa garaadada maamulka waqooyi bari ayaa intooda badan waxay iskaga baxeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inta badan garaadada waqooyi bari magaaladaas waa ay ka baxeen waxayna aadeen dhinacaas iyo sidii xuquuq tilmaamayaan magaalada Galdogob halkaas oo dabcan ay uga qayb gali doonaan caleemasaarka ugaaska guud ee beesha Leelkase madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale ka qayb galaya caleemasaarkaasi sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helayno saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka dhulbahantu waxay sheegeen in garaadada intooda badan halkaasi ay aadeen oo Laascaano ay iskaga baxeen waxaana la soo warinayaa in xaaladda Laascaano hadda ay haawanayso sababtoo ah inta badan mas'uuliyiinta iyo wasiiradii maamulkaasi ayaa ka baxay halkaasi sidaas si lamidana waxa meesha iskaga baxay garaadadii oo iyagu laftirkoodu ku anducoonaya inaysan xilligan halkaasi sii joogi jirin sababa jira awgood oo ay ku sheegeen inay xaaladda dabcan ka sii darayso waxaa jira sidoo kale aragtiyo kale oo soo baxaya oo sheegaya in amni darro ay garaadadu uga baxeen laakiin mas'uuliyiinta magaalada Laascaano qaarkood oo arrinkaas aan wax ka weydiiyay waxay ii sheegeen inuusan jirin warkan isla markaana ay xaaladdu tahay mid degan oo waliba ay xaajadu u badan tahay mid degan
oo aysan jirin amni darro ay garaadadu halkaasi uga baxeen saaxiibayaal wararkeennina intaas ayay ku dhan yihiin ee soo dhawaada saaxiibayaal